bishaaro dadweynuhu idinkuna bal khayr dhaha isbitaalka alxayaad uga barateen qaybo kala duwan ayaa waxa kamid ah qaybta qaliinada guud qaybta bukaan jiifka qaybta bukaan socodka shaybaadh casriya qaybta cadka lagu baarayo oo laga eegayo xanuunka qofka haya oo markii ugu horeysay laga hirgeliyay Soomaaliland oo dhan qaybta kombiyuutarka caloosha qaybta sawirada lafaha qaybta tuumbada caloosha lagu dhaadhicinayo qaybta umusha oo qalab casri yaalaan qaybta mishiinada caruurta lagu koriyo marka ay dhashaan iyagoon waqtigoodii gaadhin qaybta caruurta qaybta lagu xanaaneynayo hooyada uurka leh iyo ilmaha ilaa iyo inta ay ka dhalayso talaalna waa la siinayaa waana bilaash qaybtaasi qaybta emergency-ga oo waqti kasta inii furan haddaba isbitaalka weyn ee alxayaad waxa uu idigu soo dhaweynayaa gacmo furan ha moogaanina qaybaha kala duwan oo diyaarka iniigu yahay isbitaalka alxayaad wixii faahfaahin intaasi dheer fadlan kala xidhiidha telefoonada iyo ciwaanada shaashada ka muuqda ogeysiis maamulka sare ee dugsiga MBK International School waxa uu ogeysiinaya dadweynihii dalbaday in loo furo galaasyo English ah wadaba waxa uu dugsigu kuugu bishaareynaya inay idin fureen galaasyadii Englishka ahaa ee aad ka dalbateen dugsiga MBK International School iyadoo oo aad computer coursesna aad dooran doonto sidoo kale MBK waxa uu diiwaan gelinayaa ardayda dugsiga hoose dhexe ee sanadkan cusub bilaabmi doonta iyadoo ay diiwaan gelintu ka socoto xarunta dugsiga yadaba waxa uu maamulku ku leeyahay yaanu ka buuxsamine isqoristiyo soo gaad xarunta dugsiga MBK ogeysiis guud ahaanba dadweynaha jecel waxbarashada gaar ahaana intooda xiisaysa barashada xirfadda buuxda ee saxaafadda xarunta sare ee ku caanbaxday barashada saxaafadda ee Sow Community College waxa uu kuugu bishaareynayaa in mar kale ay si rasmi ah kuugu bilaabmayaan qaybtii dufcadda saddexaad ee barashada saxaafadda oo 2 fasal oo hor leh lagu furay fasalka koobaad waa barnaamijka tababarka xirfadda buuxda ee warbaahinta aasaasiga ah oo lagu soo koobay muddo 4 bilood ah fasalka labaad waa diyaarinta shahaadada dibloma ee barashada saxaafadda oo iyadana lagu soo koobay muddo 12 bilood ah oo kaliya ka faa'iideyso fursadani dahabiga ah waxa aanad helaysaa shahaadooyinka sare ee dhinaca saxaafadda sida MTB2 iyo welibana shahaadada kale ee DMC7 isdiiwaangelintu waxa ay ka socotaa xarunta college-ka oo ku yaala istaanka looga baxo magaalada Hargeysa wixii faahfaahin intaasi dheer kala soo xidhiidh telefoonada shaashada kaaga muuqda waxa magaalada Boorama lagaaga furay farmasi cusub oo uu kuugu diyaar yahay dhakhtar Baakistaniya farmasigaasi oo lagu magacaabo Advanced Medical Center waxana uu doctorkan Baakistaniga ah uu daweyn doonaa cudurro ay ka mid yihiin neerfaha xididada suuxdimaha madax xanuunka dhiikarka dhibirka werwerka dhabar xanuunka rheumatismka hurdo la'aanta iyo cudurrada guud dhakhtarkan ayaa hadaba waxa uu xarun caafimaad ku leeyahay xarunta Adal International Academy meel aan sidaas uga dheerayn hadaba wixii faahfaahin intaasi dheeraada waxaad kala xiriiri kartaan telefoonada iyo ciwaanada shaashada idinka muuqda ogeysiis shirkadda nadaafadda ee Horseed waxay ogeysiinaysaa dhammaan meheradaha ganacsiga ee suuqyada magaalada Boorama iyo hoteeladu in ay diyaariyaan qashinkooda ka qoyan iyo ka dareeraha iyo ka qalalanba waxana ku diyaara oo halkaasi ka qaadi doonta shaqaalaha shirkadda nadaafadda ee Horseed sidaa darteed muwaadin diyaari qashinkaaga si lagaaga qaado
ogeysiis waxa uu bulshooyini ogeysiinayaa dhakhtarka weyn ee Alxayaad inuu fadhiisan doono dhakhtarka caruurta 8 subaxnimo ilaa 2 duhurnimo maalmaha Axadda iyo Arbacada bishan iyo bisha dambaba dhakhtarka eegidiisuna waa bilaash hooyada uur kale waxa loo furay qayb lagaga warhaynayo caafimaadkeeda iyada iyo ilmaha ilaa ay ka dhalayso iyada oo la siin doono talaalo iyada iyo ilmahaba adeegaas oo dhan waxa la idinku samaynayaa si bilaasha haddaba bulsho intaynaynu dhaafin fursadan uu niifidiyo isbitaalka weyn ee Alxayaad ka faa'iideysta wixii faahfaahin dheeriya fadlan kala xiriira telefoonada iyo ciwaanada shaashada ka muuqda shabakada bulshakaab waa shabakad ay ku bahoobeen farmasiyadaas oo leh ujeeddo ah inay bixiyaan adeeg tayadiisu ay sareyso farmasiyada ku jira shabakada bulshakaab waxaa jooga shaqaale xirfad iyo aqoon dheeraada u leh shaqadooda sida xirfadda u adeegidda iyo talasiinta macaamiisha gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka hooyo la xidhiir farmasiyada leh boodhka bulshakaab hosbitaalka Allaale waxa uu idin soo kordhiyay 2 qaybood oo cusub oo kala ah qaybta caruurta iyo qaybta ilkaha. qaybta ilkaha waxa idinku diyaaraa Dr. Maxamed Ismaaciil oo aad ka heli doontaan saarista ilkaha, buuxinta ilkaha, sifaynta iyo nadiifinta ilkaha, xidhidda iyo daaweynta dhaawacyada ilkaha iyo daaweynta dhammaan xanuunada afka. qaybta kale waxa idinku diyaaraa Dr. Hodan Saleeban oo ku takhasustay xanuunada caruurta waxayna ay fadhiisan doontaa maalmaha Isniinta iyo Khamiista saacaduna ay tahay 8 subaxnimo ilaa iyo 2 duhurnimo. waxa kale oo isbitaalku idin diyaariyay qaybta bukaan jiifka oo aad u qalabaysan oo si toos ahna u shaqeysa. haddaba bulshooy hamoogaan Dr. caruurta Dr. Hodan Saleeban ubadkaagu ehelkayo qoyskaagu shubaan uga badbaadan biyo sifeeye loogo bushaaro dadweyno waa kiniinka biyo sifeeye si aad biyo sifeeye si sax ah u isticmaasho raac tilmaamaha kan biyaha cabitaanka ku shub jariikaanka 20 litir qaada hal xabo oo kiniinka biyo sifeeye ah ku rid kadibna sug 30 daqiiqo hadda biyihii way daawaysan yihiin waana cabbi kartaa kiniinka biyo sifeeye waxa uu biyaha jeermiska ka ilaaliyaa muddo 24 saacadood laga bilaabo markii aad ku riday maalin kasta iyo mar kasta isticmaal kiniinka biyo sifeeye si aad u dhowrto caafimaadkaaga una hesho biyo nadiif ah biyo sifeeye waxaad ka heli kartaa dhammaan farmasiyada magaalooyinka Soomaaliland shubaan uga badbaadan biyo sifeeye loogo Nation League waa la hubayo waa nasteexa dadkeena waa nadka ugu balaaran geeska aynu ku noolahay shicibka u naxwaayo qiimaheena si shahadii aad ku nagatana noorka ku marxaya Nation League adeegyada aad ka helayso waxa kamid ah ku shubo $1 oo ku hadal 300 minute oo gudaha ku shubo $5 oo ku hadal bisha oo dhan Nation League lagala soo hadlo dacallada dunida cod saafiya iyo maqal haboon oo wanaagsan international roaming nation sim card ayaa waxaad ku isticmaalaysaa wadamada dunida halkii aad joogtaba waxa kale oo aad helaysaa oo aad nation league helaysaa mobile leh 2 sim card FM radio touch telephone tayadiisu ay aad u sareyso oo qiimo jaban leh isticmaal hanaanka e-voucher si aad lacag u shubato Nation League ku hadal $1 10 daqiiqo wadamada shaashada kaaga muuqanaya $1 kula hadal 5 daqiiqo wadamada shaashada kaaga muuqanaya ku shubo $1 oo ku hadal 20 daqiiqo wadamada shaashada kaaga muuqda ha moogaanin Nation League haddaba shirkadu waxay u soo guurtay bartamaha farasmagaalaha gaar ahaan dhismaha Africa Online qaybtiisa u jeeda koonfurta ee eegaysa laamiga
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن ونكسن أخياتها ودنا دعوانا إساي ومركلي هذه أدنوغا براتين وروحي دلك إيدي بدل نغسو قاري وركنا عاو وحا إذن كديارة أنيقو أحمد ديري عيل تراه قضبضا وركا أغدور كرول لي هبين كان عاوا أن إذن كوها يوحا كمد degmada boonay gobolka Salal waxa loo magacaabay gudoomiye cusub iyadoo oo xaflad xil wareejin ah gudoomiyaha cusub iyo gudoomiyihii hore lagu qabtay degmadaasi wasiirka wasaaradda warfaafinta jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Daahir Cakuse ayaa waxa uu ka hadlay khilaafka soo kala dhaxgalay isaga iyo maareeyaha telefishanka رئيس الوزراء دلك الصومالية عبد فارح شردون يا برلمان كدلك الصومالية وكلا نقضي عدكي كالسوني دا وضيال انتاسي وحي هاي قضبضا وركا وقدور كرون لها تنوحا كسو دواتان وركيني اوفاه بحسن degmada boonay gobolka Salal waxa loo magacaabay gudoomiye cusub iyadoo oo ay xaflad xil wareejinta gudoomiyaha cusub iyo gudoomiyihii hore ay halkaasi ka dhacday waxana ka soo qayb galay marti sharaf aad u tiro badan waxana ay munaasabadu ay u dhacday sida tan degmada boonay gobolka Salal waxa ka dhacday munaasabad xil wareejin ah munaasabadan ayaa waxa xilka kula kala wareegayay gudoomiyanimo gudoomiyihii hore ee degmada Boon Maxamed Khayra Dhimbiil iyo gudoomiye cusub oo degmada loo soo magacaabay Maxamed Aadan Zaafiil munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay cuqaal kusimaha gudoomiyaha gobolka Salal xildhibaan ka soo jeeda degmada Saylac iyo xildhibaan ka soo jeeda degmada Boorama sidoo kale iyaguna xafladan waxa ka soo qayb galay aqoon-yahano marti sharaf aad u tiro badan iyo dadweynaha tirada badan leh ee degmadaasi Boon xafladan oo ahayd xafladaad loo soo agaasimay ayaa ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay caaqilo iyo waxgarad ka soo jeeda degmadaasi Boon waxana ay soo dhaweeyeen munaasabadan xil wareejinta waxana ay dardaaran iyo ducaba ay u direen gudoomiyihii hore ee degmadaasi Boon Maxamed Khayra Dhimbiil waxana hadaladoodii kamid ahaa وريانا العز بلا ما تنشنا دنك ما تنشنا هذا الدولة كما هوري ما كروا دولة من رأس النهي والسلام عليكم ورحمة الله إلهيكم حياة إذن هلك كيوري أيينا وحغير كمان وحسين أيوه كان هلك قبطين إلى أكوستر أولا كرب كله أنا هو استاجين وحول الأبيب ما هو إلى كتير درمان هو يلا من سلطان شدي وهو إلى الهاي وسط كتير يعني بروفيسور حامد إبراهيم برخدلي أو كتير سنسراكيس شرعي جامعة عمود أو يسقون مدرسة كهدلي أيها وحود دوينها degmada Boon oo kula dardaarmay inay midnimada iyo isku xidhnaanta ay ka shaqeeyaan waxa weeye waa in laga shaqeeyaan waxa la yiraahdo maaragtay boonnimada ama beesha Boon in aad uga shaqeeyo waayo wanaagga waxa laga soo bilaabaa xagga hoosta laga soo bilaabaa markaas kor loo wada waa inaad ka soo bilaabaan hoosta oo aad ku dadaashaan beesha boonnimada ama beesha Boon la yiraahdo sidii isku duubnideeda iyo wadajirka ugu shaqayn lahaydeen waxaa loo baahan yahay maamulka in laga shaqeeyo oo garab iyo xildhibaanada degmada Boorama iyo xildhibaanada degmada Saylac oo uu horkacayo xildhibaan Axmed Muumin Kacab ayaa waxay halkaasi ka soo jeediyeen hadallo ah inay la shaqeeyo gudoomiyaha cusub ee degmadaasi Boon ay yeelatay waxana ay ugu bishaareeyeen inay u dhisi doonaan waxana ay u bishaareeyeen dadweynaha degmada Boon أنا ما أعرف واحد نقول بشارين يا ريبان هذان ما أعرف واحد نقول بشارين يا أنا السنة كان ميزانية قالها يجي دقيقة في دقيقة بورما إيه هو مركب واحد نقول جرا أنا صليك دقيقة دقيقة بون أيه ما أنت أنا نقول جبتة وحوي إذا ما عندي ورنت وحوي أنت ما تقول وحوي ولو جمهور يتيم وحوي يصف عن
guddoomiyihii hore ee xilka laga wareejiyey iyo maayirka degmadaasi boon ay yeelanaysa cusub iyo gusimaha guddoomiyaha gobolka Salal ayaa ugu dambeyntiina hadallo halkaasi ka soo xidhay halkan maanta ku wareejinaya xilkii degmada boon oo aan qabtay 27kii bishii 12 aan halkan anigu kula wareegay noloshan maanta ka hadlayo sunaha dowladnimada ka mid tahay xil wareejinta iyo mataqaana magacaabista xilku waa sunaha dowladnimo walaalkay maxamed aadan xuseen oo aan saaxiibkay runtii oo aan aad saaxiibanahay waxaan leeyahay ku soo dhawow ama waxa la qabto qofku qofku ahaa ama waxa qabtaa iyagu dad wax fahmay noqdaan ayuu waxa xusaysaa gaar ahaan maxamed aadan xuseen in aanad fikiraysan oo horta waxa weeye aan ku shaqeeyo cadaalad hada waa in ballan qaadaya murtida aynu isugu nimi waxa weeye inaynu xilka u kala wareejino labada guddoomiye taagan degmada gool iyo dadkeeda waxaan ku ammaanaya nidaamka iyo nabadgelyada ilbaxnimada ay leeyihiin si kastaba ha ahaatee munaasabadan xil wareejinta ayaa waxay ku soo dhamaatay jawi wanaagsan golaha deegaanka dawladda hoose ee degmada Boorama oo sanad jirsaday iyo wali dadweynihii doortay oo ka dhul sugaya waxyaabihii ay qabteen warbixintan waxay noogu faahfaahinaya wariyahayaga Nuuridiin Cabdillaahi Dugsiye golaha deegaanka degmada Boorama ayaa waxa maanta ay ugu buuxdaa muddadii sanadkii iyadoo oo aanan wali laga haynin wax horumar ah oo la taaban karo oo ay ka sameeyeen degmada Boorama ee ay mas'uulka ka yihiin golaha deegaanka ayaa iyagu waxay ku wandacoonayaan in ay iyagu ka qayb qaateen dhismayaasha qaar ka mid ah wadooyinka dhexmara gudaha magaalada Boorama iyadoo oo loo ogsoon yahay dhismayaasha wadooyinka amaba dhismaha garoonka kubadda cagta ee Xaaji Daahir aw Cilmi iyadoo oo dadweynuhu ay ka dharagsan yihiin wax qabad kasta iyo cidii geysata amaba mashaariicdaasi dalbata si kastaba ha ahaatee mashaariicdan ayaa la og yahay in ay qaar kood fuliyeen golihii deegaankii hore qaar kalena ay iyagu dalbadeen oo ay codsigaasi lahaayeen haddaba waxa looga fadhiyaa xildhibaanada golaha deegaanka iyaguna in ay dalbadaan mashaariic cusub amaba ay si wanaagsan u maamulaan cashuuraha ay ummadda ka ururiyaan si ay wax ugu qabtaan baahiyaha kala duwan ee yaala gudaha magaalada Boorama balse waxa ka muuqda xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boorama in aysan weli garanayn mas'uuliyadda saaran iyo xilka ay u eegmadeen dadweynaha reer Boorama taas oo iyagu xilkii ay ka dhigeen mid lagu xaragoodo isla markaasina lagu dhex wareego gudaha magaalada Boorama taasina ay sababtay in ay ku talaabsan waayeen horumar la taaban karo ونوردين عبد الله دكسيين تلفزيون كمدة حبنان الرية TV Boorama golaha midnimada Gadabuursi oo maanta shir jirayd ay ku qabteen aqalka golaha midnimada Gadabuursi ayaa waxay baaq fariin ay u direen dhammaan ganacsatada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ay gaarsiiyeen waraaqihii ay iyagu soo direen dhaqanka midnimada Gadabuursi ayaa waxay maanta baaq ay ka soo saareen guriga midnimada Gadabuursi aqaasi oo ahaa waraaqihii ay soo gaarsiiyeen dad qaybaheeda kala duwan oo ay ku jirta ganacsatadu si looga soo jawaabi lahaa baaqan oo ay dirayaanna waxa ay sheegeen oo ku socota baac mushtariga waxa weeyaan waraaqa la inii keenay waraaqaha wax hawl badanihi kuma qorra waxaan aad iyo aad u codsananaa in maaragtaa sida ugu dhaqso badan hawshaasi u soo fusho yeelan midnimo adduunyada de wax la midhi ma jiro inaguna midnimaan ku muuqanaaye kolkii midnimo iswareega yimid waynay kala halowday kala daadanay maanta waan soo noqono waan midaysannahay mid qunaynu nahay dhalinyarada iyo da'yarta iyo dumarka iyo cid walba waxaan ka codsananaa arrintaa wixii ka yimaada ee uu yimaado qof waliba ra'yigiisa kiyoo sida fiican u fikiraya in diyaar loo noqdo si guud si hoose maaha hoostii waa la habaaro waa laga tegay habaarkuna habeerkeennuna uu kacaa ha la iska ilaaliyaan leenahay dhalinyarada iyo waxa leenahay ragga maarka qaarkii ee yar markiga adag lama haddii la jeclay yar isbaado yar wareera ha wareerina arrinta waxaan u sheegaynaa warqadda ay sumadeedu tahay
samaroon ama gadabuursi ay wadaan inamada howlwadeenkiihii ay saddexda suldaan ku saxeexan yihiin waa warqad ka soo baxday guddiga 21 ah ee samaroon ama gadabuursi ee aqalka ee guddiga la yiraahdo samatalis midnimo guddiga la yiraahdo warqad ka soo baxday weeyi warqadaasi waxa weeyi hal lagu dhaqmo sideeda hal loo hirgeliyo sidii wax kasta hadda waxa diyaar u tahay dhaqaaqi qaban qaabada adeerayaalow abtiyaalow walaalayaalow ha qabiyeynina dhicina leh ha qabiyeynina warqadana war u dhannahay salaadiinta dawlo gudoomiya suldaan xasan suldaan ibraahim fiirash warqad ku saxan waxa iyagu qorteen maaha waa warqad ka soo baxday guddida waan barayna waan abrayna wax kale ku darbaayay bak assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh jidadka gudaha magaalada Boorama ku yaala ayaa waxay qaarkood ka muuqdaan dayacnaan aad u baahsan haddaba waxaynu ku eegaynaa warbixintan iyadoo oo horumarka weyn ee degmada Boorama ay kula tartamayso degmooyinka kale ee Somaliland ayaa waxay ahayd sanado ka hor markii laamiyo cusub laga dhex dilaaciyay gudaha magaalada Boorama kuwaas oo dadweynuhu ku farxeen soona dhaweeyeen waqti kastaba waayalahe balse wadooyinkii xilliga la dhisay waxa ka muuqata dayacnaan iyadoo oo aad arkayso wadadii oo hareeraha ka go'day dhawaan bay ahayd markii xildhibaana ay sheegeen inay dayactirayaan wadooyinka halbowlaha u ah taasoo waliba raashin badan lagu bixiyay balse aan la garanayn meel uu maray raashinkii lagu dayactirayay wadooyinkaasi balse waxay noqdeen islaantii laxooxda dubaysay ee xabadii ugu dambeysay ka kacday taasoo wadadii ay qayb qabteen qaybna ay ka tageen waxa iyaguna isxilqaamay dadweynaha degan wadada halbowlaha u ah ee tagta xaafadda Sheekh Cali Jawhar kuwaasoo iskoodu dhisay wadada hareeraheeda oo aad arkayso wadada oo aad u qurux badan marka la dayactiro balse halka kale waxa ka muuqda qaar wadada hareeraheeda waxba laga qaban taas oo googu uu ku muuqdo dayactirkan aad arkaysaan waa wadada hormarta telefishanka Raya TV oo maanta ay iskoodu dayactirayaan balse mas'uuliyaddu ay dayactirka wadooyinka ay saaran tahay maamulka degmada Boorama oo ay u horeeyaan qaybta fulinta hawlihii loo igmaday ee ay bulshadu u dooratay goobta dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Nuur Qaadi waxay ahaan jirtay goob nadaafad darro badan halkaas oo ay bulshada garab maraya ay ka yaaqsoon jireen balse iyadana waxa xil iska saaray nin muwaadin ah oo goobtaasi nadiifiya gacantana ku haya kana hela gargaar walada istaanka Jabuuti isaga iyo haweenay goobtaasi ka agdhow oo charla ah waxaan iga haysto meeshan reedaan bay iga haysto Soomaaliland bas aday diiso gashay saas way ugu bedel siyaasad soo jeedo waxa la sheegay booliska ay la shaqeeyaan wasaaradda ay soo xukun weyn waa bal xabad guluub marka noqdo ardaydu waxay soo mari jireen baan iyagu xaalka ku sii tumanay ay soo mari jireen halka oo isku kala gali jireen ya maantana salaada lagu tukanay wada gashay taymas والله كده حتى هيدو حمام مهم قينا odayga habeen iyo daraarta halka gaarka ka ah hadii qolkii hore daryeel la'aan iyo usad baan dilay iyo awlaadeedii oo dhibaatay imikii haatan caafimaad baa wax kasta loo marka dawladda iyo odayga baa ma hadnaqay balse waxa taagan in bilicdii iyo nadaafadii ay ku wareejiyeen shirkadda la yiraahdo Horseed kawaankiina lagu wareejiyay shirkadda Damasko haddaba dawladda hoose ee degmada Boorama waxa looga fadhiyaa sidii ay u hirgelin lahayd horumarka waxbarashada degmada horumarka caafimaadka degmada dhiska wadooyinka badan ee magaalada Boorama iyadoo oo dib u dhac aad u ballaaran uu ka muuqdo wadooyinka qaarkood haddii ay tahay wadada tagta xaafadda Sheekh Cali Jawhar oo in badan dib u dhacday iyadoo oo xaafadda Sheekh Cali Jawhar ay iskeed lacagtii ay iskaga soo ururisay ay gacanta ku hayaan balse tii dawladda hoose laga leeyahay waxa kale oo intaasi ku dheer iyaduna waxa dib u dhacaad weyn uu ka muuqdaa wadada hormarta cusbitalka aadan faarax abraar taasi oo halbowla ah iyadoo oo waqti ka horna ahayd
mid la xaadxaadhay su-aashase isweydiinta mudani waxay tahay sanad guuradii koowaad ee golaha deegaanka degmada Boorama iyo horumarka uu ka tallaabsaday iyadoo oo uu sanad u buuxsamay maxaa uu qabsoomay shirkadda adeegyada biyaha ee Shaba ayaa waxay biyagelin aad u ballaaran ka bilowday koonfurta magaalada Boorama iyadoo oo deegaanka Shaylaha halkaasi biyagelin ka soo bilowday waxaynu ku eegaynaa warbixintan shirkadda biyaha ee Shaba ayaa waxay biyagelin ka bilowday koonfurta deegaanka Shaylaha ee magaalada Boorama biyagelintan ayaa waxa la gaarsiinayaa koonfurta xaafadaha magaalada Boorama waxaana goobjoog ka ahaa mas'uuliyiinta wakaalada biyaha injineero ka socda dawladda hoose ee degmada Boorama kuwaasi oo saxayay toonbaraynka biyagelinta magaalada sidoo kale iyaguna waxa ka hadlay qaar kamid ah mas'uuliyiinta shirkadda Shaba waxaana hadaladoodii kamid ahaa biyagelinta aan ku biyagelinayno koonfurta magaalada Boorama Shaylaha oo wajigii ama feeskii u dambeeyay aan wadno oo aan jeexayno beebkii aan jeexayno iyadoo beebkana soo dhigi doono waxa jirtay in biyaha Boorama oo soo dhacay ku jiray oo ceelashii dhamugeed ee aynu ka cabi jirnay ama xaruntii dhamugeed ah hoos u dhacday haddana lagu daray in biyo laga raadiyo camuud ceelashii labada camuud ee aan camuud ka helayna hoos dhac bay iyagana ku yimiday magaalada Boorama xoog bay u fidaysaa waxa weeyaan ceelkii Shaabe muxuu Shaylaha ayaan halka qasabada muxuu Berliin waa talaalina marka halka wax soo marin muxuu daahiy badan marka wax wadna muddo 3 shaa maantii afraada adu balaakin magaalada imika waa noofishnay halka marna imika badan kale ila magaalada waxa weeyaan wariye hawshan horta in badan baan ku soo jirnay muddo dhowr bilooda waxaan wadnay taangiga ceelasha iyo qaybta fog ee ay ku yaalaan ceelasha yaan wadnay waxa weeyaan imika pipeline-kii baan wadnaa pipeline-kaas oo dhulka runtii aad noogu adkaaday aan uga faa'iidaysanayno in aan wado iyo isku darno alignment-kii oo jeexno saa darteed haddii alla yidhaaho muddo dhow waxaa laga yaabaa in dhulkan oo sida injineerku sheegay dib weyn inaga haystay xagga biyaha ama si aan biyuhu soo wada gaarsiisnay marka ereyadan oo kale biyo male inuu wax ka tari doono ceelashaasi ay wax weyn ka tari doonaan baahida biyood ee Boorama ka jirta iyo qaali bay nagu yihiin marka waxa foostada naga siiyaa in 7,000 marka aad iyo aad baan u raysanaynaa waana ugu mahadnaqaynaa dadka soo gelinaya biyaha marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa wixii madganaysaa miyiga ee nagu dhowina way ka cabi doonaan marka sidaasi baan aad ugu faahfaahinaynaa uguna raynaynaa haye ma aha markii ugu horeysay ee shirkadda adeegyada biyaha ee Shaba ay adeegyo biyo ka furiso gudaha magaalada Boorama balse waxa soo noqnoqota biyagelinta iyo gaarsiinta sidii ay ugu fidin lahayd shirkadda adeegyada biyaha ee Shaba magaalada Boorama madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo ayaa waxa uu socdaal ku maray magaalooyin ay ka mid yihiin Wajaale iyo Arabsiyo sida ay warkan inoogu faahfaahinayso wariyahayaga Amran Caafi madaxweynaha Soomaaliland oo booqday degmada Wajaale iyo tuulada Laybaday madaxweyne Siinaayo ayaa sheegay in Soomaaliland tahay dal soo koreeyay baahidina sino meel walba taalo isla markaana waxa dakhli ahaan inoo soo gala aanu wada kafayn karin baahiyaha dalka yaalo dhan madaxweynaha Soomaaliland wuxuu sida ku sheegay khudbad uu jeediyay dadka ku dhaqan tuulada Laybaday oo uu booqasho ku tagay madaxweynaha ayaa dadka u mahad celiyay sida ay u soo dhaweeyeen wuxuuna u ballan qaaday in aanay xukuumaddiisu waxba ka hagran doonin deegaanadaasi madaxweyne Siinaayo ayaa sidoo kale dadweynaha ku dhaqan degmada Wajaale ay si ballaaran u soo dhaweeyeen madaxweynaha iyo wafdigiisa kuwaas oo aanay yar iyo weynba u kala hadhin soo dhaweynta madaxweynaha iyo wafdigiisa kuwaas oo isugu soo baxay fagaaro ay buux dhaafiyeen iyagoo ku qaabilay fardo iyo caleemo qoyan wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta dhaqanka ee Soomaaliland Maxamed Daahir Cakuse ayaa markii ugu horeysay ka warbixiyay khilaafka soo kala dhaxgalay isaga iyo maareeyaha TV-ga qaranka Soomaaliland
sida ay warkan noogu faahfaahinayso wariyahayaga Saamiya. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta mudane Cabdilaahi Maxamed Daahir Cakuse ayaa ka hadlay natiijo uu tilmaamay inay dib u eegis ku sameeyeen xaaladda shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda iyo sinaanshahooda xuquuqeed ee guud ahaan wasaaradda warfaafinta. sida waxa uu ku sheegay wasiir Cabdilaahi Cakuse mar uu maanta ka hadlay xaflad ay wasaaradda warfaafintu kula wareegaysay qalab warbaahineed oo kala duwan ayaa waxa uu xusay in ay jiraan dad mushahar qaata oo aan xilligan hawl ka qabanin wasaaradda iyo kuwa dhoofay ama dhintay oo mushaharadoodii iska socoto kuwaasi oo mushahar kunaba ka badan shaqaalaha maalin walba shaqada qaran joogteeya. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Cabdilaahi Maxamed Daahir Cakuse ayaa waxa uu sheegay in ay maalmahanba ka wadeen dib u eegis ay ku sameeyeen shaqaalaha iyo shaqada wasaaradda warfaafinta isla markaana ay u xil saareen guddi ka mid ah wasaaradda oo ka koobneed agaasimaha guud maareeyaha TV-ga gudoomiyaha Dawan Group agaasimaha farsamada iyo agaasimaha idaacadda. waxa uu sheegay in ay soo gudbiyeen liisas ay ku jiraan waxoogaa khaladaad ah isla markaana ay ku jiraan shaqaale aan shaqadooda gudan isla markaana qaata mushaharo iyo gunooyin. mudane Cakuse waxa uu ballan qaaday in ay ka go'an tahay sida shaqaalaha shaqadooda ka soo talaala ay xuquuqdooda oo siman u sugi lahaayeen. mudane Axmed Ismaaciil Idris oo ka hadlay munaasabadan ayaa sheegay in ay agabkan warbaahineed oo qiimihiisu gaadhay 65,000 oo dollarka Mareykanka ay qayb ka tahay mashruuca loo yaqaan TSL-ka kaasoo khuseeya horumarinta hay'adaha dawladda isla markaana deeqdani ay tahay mid lagu doonayo in lagu xoojiyo wasaaradda warfaafinta. munaasabadaasi waxaa sidoo kale ka hadlay agaasimaha qorsheynta wasaaradda warfaafinta mudane Khadar Axmed Sheekh Aadan isagoo sheegay in qalabkani uu wax weyn ka tari doono baahida iyo socodsiinta hawlaha shaqo ee wasaaraddaasi. wadayaal xilitabinteena wareed qodobka ugu dambeeya ayaa waxa uu yahay ra'iisul wasaarihii dalka Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid oo muddooyinkii ugu dambeeyay oo khilaaf xooggan soo kala dhex galay isaga iyo madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa baarlamaanka dawladda Soomaaliya oo codkii aqlabiyadda ahaa uu kala noqday ama kalsoonida ahayd ra'iisul wasaare Saacid. warkan oo faahfaahsan waxay noo hayaa wariyahayaga Nuux Cumar Kadiye. fadhi ay maanta isugu yimaadeen xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayay codka kalsoonida kala noqdeen xukuumadda uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saacid. 250 xildhibaan oo ka mid ah 275 xildhibaan ee baarlamaanka ka kooban yahay ayaa fadhigii maanta soo xaadiray waxaana shir gudoominayay afhayeenka baarlamaanka Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. fadhiga oo bilowday saacada Muqdisho markii ay ahayd 10kii subaxnimo ayaa ku bilowday in doodii axadii soo bilaamatay ay halkeedii ka sii socoto isla markaana ay hadlaan xildhibaano isqoray. markii doodii soo dhamaatay ayaa shir gudoonku go'aamiyay in codka kalsoonida loo qaado xukuumadda Cabdi Faarax Shirdoon Saacid. 184 xildhibaan ayaa u codeeyay mooshinka kalsooni kala noqoshada xukuumadda waxaana codka kalsoonida siiyay ra'iisul wasaare Saacid 65 xildhibaan. gudoomiyaha baarlamaanka ma aanu codayn arrintan oo booska u banaynaysa in madaxweynaha uu soo magacaabi karo ra'iisul wasaare cusub. haddaba kalsooni kala laabashada xukuumaddii uu hogaaminayay ra'iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa soo afjaraysa khilaaf muddo bil ah soo jiitamayay oo u dhaxeeyay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha kadib markii ay isku qabteen dhisitaanka golaha wasiirada. ra'iisul wasaare Saacid oo maanta jeediyay khudbadii uu ugu talagalay maalintii shalay ahayd inuu ka jeediyo baarlamaanka balse loo diiday ayaa sheegay in uu hogaansamayo go'aan kasta oo baarlamaanku uu qaato waxaana uu ku eedeeyay khilaafka isaga iyo madaxweynaha u dhaxeeya inay shukaanta u qabtaan qaar ka mid ah golihiisa wasiirada kuwaas oo uu sheegay in ay aaminsan yihiin in ay dib ula laabanayaan sidaasna uga caanabadinayso waxaana uu ku tilmaamay koox khatar ku ah masiirka Soomaaliya. jidka uu maray ra'iisul wasaare Saacid maaha mid ku cusub waxaa
hore u qaaday ra'iisul wasaarayaashii soo maray Soomaaliya 13 sano ee u dambeysay kadib markii shaqada isu qabteen madaxweynayaashii soo xukumay dalalkaasi Soomaaliya si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa noqonaysa mid gabi ahaanba ay shacabka Soomaaliyeed u dhagtaagayeen labadii maalmood ee u dambeysay balse tani ayaa noqotay mid lagu wada qanco kadib markii laga laabtay ra'iisul wasaare Saacid kalsoonidii ay xildhibaanadu siiyeen isku soo wada duubo madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa laga warsugayaa cidda uu ra'iisul wasaare u soo magacaabo daawadayaal wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa waxaan mahadcelin gaar ah siinayaa dhammaanba farsamayaqaanada iyo wariyaasha igala qayb qaatay tabinta warka tan iyo intaanu ku kulmi doono warka xiga dhammaantiinba waanu Axmed Diiriye Ciltiro idinku dhaafaya habeen wanaagsan